warka aqoon-yahanka kala duwan ee dalkan Itoobiya ayaa ku baaqay in laga hortago saameynta qaldan ee lagu rabo in lagu hakiyo dhismaha mashruuca weyn ee biyo xidheenka webiga Abaay. laamiga ah ee isku xidhay jigjiga galaalshe dhagax madow iyo sagag ayaa la sheegay in lagu soo gabagabeynayo muddadii loogu talagalay muddo ka yar. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داودياشهدا qiimaha iyo qadarinta mudan meel walba daafaca caalamka nagala socotaan galab wanaagsan halkani waa telefishinka qaranka Itoobiya waxaad ku soo dhawaataan warkii laanta afka Soomaaliga oo si toos ah idinkaga imanaya Addis Ababa waxaan idin waramaya anigu Axmed Maxamuud madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga federaalka Itoobiya Marwe Sahle-Worqi Sawde ayaa hambaliyo u dirtay madaxweynaha dalka Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle oo markii shanaad ku guuleystay doorashada madaxtinimo ee dalkaasi Djibouti madaxweyne Sahle-Worqi Sawde ayaa hambaliyadan u marisay barteeda Twitter-ka madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle Marwe Sahle-Worqi Sawde ayaa madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle iyo shacabka dalka aan walaalaha nahay ee reer Djibouti u rajaysay horumar iyo madaxweynaha dalka Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle ayaa ku guuleystay markii shanaad jagada madaxtinimo ee dalkaasi cod aqlabiyad leh madaxa golaha sare ee arrimaha islaamka ee dalkan Itoobiya Mufti Xaaji Cumar Idris ayaa muslimiinta dalkan Itoobiya ugu baaqay in iyagoo ka faa'iideysanaya bisha Ramadaan ay iscaawiyaan waxaana warbixintan lagu tilmaamay in bisha Ramadaan haddii ay dhalato caawa oo ay ku beegan tahay sanadkan aan idhaahdee 1442 ee taariikhda hijriyada ay dhalanayso bisha Ramadaan haddii la arko haddii kalena ay bisha Ramadaan ay dhalanayso maalinta ay kow tahay maalinta salaasada ee saa dambe gudoomiyaha golaha sare arrimaha islaamka Mufti Xaaji Cumar Idris ayaa ugu baaqay dhammaan muslimiintu in ay ka faa'iideysanayaan bisha barakeysan ee Ramadaan ay istaageeraan oo ay iscaawiyaan oo ay wanaaga ay ku dadaalaan haddaba bisha barakeysan ee Ramadaan ee 1442 waxaa la soomi doonaa laga bilaabo maalinta bariyaha ee Isniinta haddii bisha caawa la arko haddii aan bisha caawa la arkinna waxa uu noqon doonaa soonka uu bilaami doonaa maalinta salaasada ah ee fooda nagu soo haysa waxaanu Mufti Xaaji Cumar Idris ugu baaqay muslimiintu in ay istaageeraan oo ay iscaawiyaan Ramadaan ya Qur'aan Ramadaan no yamastazazanya yamarjaja Ramadaan no bisha Ramadaan waa bisha Quraanka waa bisha la isku caawiyo oo la isku taageero qofka saaxiibka u xiga uu ku caawiyo ee uu ku taageero qofka dariskiisa dhibaataysan waxa uu ku dhaamo inuu ku caawiyo laakiinse waa inaan iska ilaalinaa xanta tuugnimada inaan dadka dilka loo geysanayo shacabka beenta iyo falalka foosha xun oo dhan waa inaan ka taxadarno bisha barakeysan ee Ramadaan sidoo kale Mufti Xaaji Idris waxa ugu baaqay dhammaan muslimiintu in ay midnimadooda ay ka shaqeeyaan si ay dalkooda iyo waliba diintooda ay u ilaashadaan እያንዳንዱ ግለሰብ ለሰላም ማሰብ አለበት ለአንድነት መጨነቅ አለበት አንድነት ከሌለ ሰላም አይገኝም ሰላም qof walba waa in uu ka fikiraa sidii nabadgelyada dalkiisa uu ilaalin lahaa nabadgelyo la'aan horumar ma jirayo horumarku haddii aanu jirina saboolnimo ayaa jiraysa saboolnimadu haddii jirtana maadaama daciif noqonayno dalkeenna iyo diinteennaba ma ilaashan karayno waxaan dhammaan shacabweynaha Itoobiya ugu baaqaya in aan midnimadeenna iyo nabadgelyadeenna aan ka shaqeyno haddaba guud ahaan waxa la sheegayaa in bisha barakeysan ee Ramadaan ee 1442 haddii caawa bisha la arko in la soomayo maalinta Isniinta ah haddii aan bisha la arkinna uu soonku ku beegmayo maalinta salaasada ee fooda nagu soo haysa وهاج aqoon-yahanada kala duwan ee dalkan Itoobiya ayaa sheegay inuu dalkan Itoobiya sumcad wanaagsan ay ku yeelatay dhismaha biyo xidheenka webiga Abaay gaar ahaan dhanka dhaqdhaqaaqa diblomaasiyadeed iyadoo dalkan Itoobiya ay adeegsanayso luqadaha kala duwan ee muwaadiniinta dalkan Itoobiya ay kaga qayb qaataan masraxyada heer caalami aqoon-yahanka ayaa sidoo kale waxay ku baaqeen in laga hortago saameynta khaldan ee la rabo in lagu hakiyo dhismaha mashruuca weyn ee biyo xidheenka webiga Abaay wariyahayga maxamed iyo mar kale
aqoon-yahaminta kala duwan ee dalka ayaa waxay tilmaameen in doorka ay dowladda Itoobiya ay ka qaadatay dhinaca dhismaha biyo-xidheenka weyn ee dibcashada Itoobiya ay tahay mid guul weyn ku soo kordhisay gaar ahaan dhinaca diblomaasiyadda ee dowladda Itoobiya ay ku dhaqaaqayso gaar ahaan dhinaca dhismaha biyo-xidheenka weyn ee dibcashada Itoobiya. Haddaba qaar ka mid ah aqoon-yahaminta dalka oo wareysi siiyay wakaalada wararka Itoobiya ENA ayaa sheegay in ay doorka Itoobiya ay ku leedahay iyo muwaadiniinta kala duwan ee Itoobiya doorka weyn ay ka qaadanayaan dhinaca diblomaasiyadda luqadaha kala duwan iyagoo ku hadlaya baraha bulshada iyo warbaahinada caalamku ay faa'iido weyn ku soo kordhisay sumcadda ay dowladda Itoobiya leedahay iyo waliba xuquuqda ay u leedahay ka faa'iideysiga kheyraadka webiga Abay. Samuel Tafarra oo qabilsan arrimaha taariikhda qaaradda Afrika iyo Aasiya oo wax ka bara jaamacadda Addis Ababa University ayaa waxa uu sheegay in doorka weyn ee ay aqoon-yahaminta iyo waliba muwaadiniinta Itoobiya oo dhalatay meelaha kala duwan ee dalka ku nool doorka weyn ay ka qaateen dhinaca luqadaha kala duwan dhinaca luqadda Carabiga, Faransiiska iyo luqadaha kala duwan ee caalamkaba dhaqdhaqaaqa ay ka wadaan uu faa'iido weyn u horseeday dalka Itoobiya gaar ahaan sidii ay sumcad wanaagsan ugu yeelan lahayd dhismaha biyo-xidheenka weyn ee dibcashada Itoobiyana ay danteeda iyo dan gaar ahaaneed aanay u dhisanaynin balse ay doonayso shacabkeeda inay ku horumariso ay u dhisanayso arrintaasi ay caalamka u soo bandhigeen. Tallaabadaasina wax weyn ay ku soo kordhisay diblomaasiyadda Itoobiya ee heer caalami iyo sumcadda caalamka ay ku leedahay dowladda Itoobiya. dhinaca kale mudane Faqi Ahmed oo ku xeel dheer arrimaha kheyraadka biyaha ayaa waxa isaguna tilmaamay in wada hadalka iyo gorgortanka ay dowladda Itoobiya ay ugu casumtay ugu baaqday intaanay wareegga labaad ee buuxinta dhismaha biyo-xidheenka weyn ee dibcashada Itoobiya aanay bilaabin ka hor in ay ku casumtay oo isla markaasina albaabada u furtay in ay khabiirada ka socda dalkaasi Suudaan iyo Masar inay ka qayb qaataan arrintaasi ay tahay haddii xitaa ay ka soo qayb galaan in ay tahay mid u baahan in laga fiirsado maadaama ay wakiiladaasi iyo khabiiradaasi kala duwan ee ka soo socda ka imanaya dalalkaasi la wadaaga kheyraadka webiga Abay ay danahooda gaar ahaaneed ay wataan in loo baahan yahay taxadar ballaadhan arrintaasina aanay wax saameyn ah aanay ku yeelanaynin dalka Itoobiya. haddaba waxaa jirtay dhowaantan shirkii Kinshasa ee saddex geesoodka ah ee ay ka qabsoomay ee midowga Afrika uu hogaaminayay kadib markii isfahan lagu gaadhi waayay ayuu yahay baaqani ugu horeeyay dowladda Itoobiya ay ugu baaqday in ay ka soo qayb galaan khabiiradooda ay soo dirsadaan intaanay dowladda Itoobiya u galin wareegga labaad ee buuxinta dhismaha biyo-xidheenka weyn ee dibcashada Itoobiya. warshad soo saarta caanaha oo ay ku baxday adduun lacageed oo dhan 610 milyan oo bir ayaa bilowday inay soo saarto 240,000 oo litir maalintiiba. warshadan ayaa waxaa laga hirgeliyey nawaaxiga magaalada Addis Ababa. warshadan oo lagu magacaabo Lame Dairy ayaa shaqo abuur waxa ka helay in ka badan 400 oo muwaadin. madaxweynaha deegaanka Oromiya Mudane Shimelis Abdiisa ayaa waxa uu sheegay inay warshadani faa'iido weyn u leedahay shacabka magaalada Addis Ababa iyo xoolo dhaqatada nawaaxiga magaalada Addis Ababa oo isku soo dhaweynayso. dhinaca kale ku-xigeenka duqa ismaamulka magaalada Addis Ababa Marwaadane Jababe ayaa ka hadashay munaasabadaasi waxayna sheegtay inay warshadani wax weyn ka qabanayso baahida caano yaraaneed ee ka jirtay magaaladani Addis Ababa. وهاجاك داوديال ولي واحد داون سان وركا لانتافكا سوماليغا تلفزيونكا قرانكا شركدا غعنتا ku haysa dhismaha jidka laamiga ah ee isku xidha jigjiga galaalsheed dhagaxmadow iyo sagaga ayaa sheegtay inay dhismaha jidkaasi ku soo gabagabeynayso muddo ka yar muddadii loogu talagalay in lagu soo gabagabeeyo sida uu ku waramayo wariyahayga Nimcaan Cusmaan. waxaa soconaya dhismaha jidka laamiga ah ee ka kooban 110 kilomitir kaasi oo ah mid isku xidhaya magaalooyinka Jigjiga, Galaalshe, Dhagaxmadow iyo Sagag. waxaana mashruucani uu yahay mid si rasmi ah u dhagax dhigay ra'iisul wasaaraha dalka Abiy Ahmed. mashruucani oo haddaba ay dhismihiisa gacanta ku hayso shirkadda laga leeyahay dalka gudihiisa ee Beka ayaa waxay hore u ballan qaaday in dhismahani ay ku soo gabagabayn doonto muddo ka yar intii loogu talagalay. ra'iisul wasaare Abiy oo xilligaasi ka hadlay qandaraaska shirkaddani qaadatay ayaa waxa uu sheegay in uu yahay mid aad loogu kalsoon yahay isla markaana shakhsiyan oo aad ugu faraxsan yahay in shirkad dalka gudihiisa ka dhisan ay fulinayso mashaariicyo baaxad weyn. ሀገር በቀል ብቻ ሳይሆን የጀመረውን የሚጨርስ አስተማማኝ ኩባንያ መሆኑ ደስታዬን እጥፍ ድርብ አድርጎታል። maareeyaha mashruucani ayaa waxa uu sheegay in iyaga oo tixgelinaya ballanta ay hore u qaadeen ay dardar gelinayaan howlaha ay ku guda jiraan. Hogas McConan ayaa tilmaamay in ay si fiican u socdaan isla markaana ay meel wanaagsan marayaan howlaha lagu dhisayo wadadani taasi oo suurto gelin karta in ay ku soo dhamaystiraan muddo ka yar intii loogu talagalay. geestiisana Nuuru Cali oo la taliye ka mashruucani ayaa waxa uu sheegay in ballanta ay shirkaddu qaaday oo ahayd in wadadani lagu soo gabagabeeyo muddo ka yar intii loo qabtay
ay taasi u muuqato mid suurtagal ah. Madaxa wakaaladda jidadka qaybteeda bariga dalka Daawid Tigaabu ayaa waxa uu sheegay in inta badan la soo gabagabeeyey goglidda carrada ee waddooyinkani, waxaana uu sheegay in taasi ay natiijo wanaagsan tahay marka loo eego muddada yar ee shirkaddani ay hawsha waday. waxaana mas-uulku intaasi raaciyey in wakaaladda jidadka ee qaybteeda bariga dalku ay dhinaceeda caawiso shirkadda. Mashruuca dhismaha ee jidadka laamiga ah ee isku xiraya magaalooyinka Jigjiga, Galaalshe, Dhagaxmadow iyo Sagag ayaa la filayaa marka uu soo gabagaboobo in uu wax weyn ka tari doono baahiyaha dhinaca jidadka ee ay shacabka deegaanka Soomaalidu qabaan. meelaha dhaqdhaqaaqa tartanka doorashooyinka laga mamnuucay. meelaha hoos ku qoran lagama fulin karo ololaha doorashooyinka ee codbixiyaasha lagu soo jiidanayo. masaajidada, kaniisadaha, xeryaha ciidamada militariga iyo saldhigyada booliska, dugsiyada waxbarashada iyo nawaaxigooda marka geedi socodka barisbarasho uu ka socdo meel masaafadeedu ama fogaanshaheedu 100 mitir ka yar yahay. meelaha shacabku ay wax kala iibsadaan miyiga iyo magaalooyinka maalmaha qaarkood marka kala iibsashada rasmigu ay socoto meel ka yar masaafo 100 mitir. goobaha laga fulinayo shaqooyinka dawladda ama shacabka saacadaha shaqada ee rasmiga ah. meelaha iyo goobaha ay ka socdaan shirar kale oo dadweyne. shacabka iyo maamulka gobolka Kaafa ayaa iska kaashanaya dhismaha 10 wado oo laga hirgelinayo dhulka miyiga ee deegaankaasi. mar kale wariye Nimcaan Cusmaan. mashaariicda dhismaha wadooyinka gobolka Kaafa ee laga hirgelinayo dhulka miyiga ah ayaa la sheegay in ay meel wanaagsan marayaan. dhismaha wadooyinkani ayaa waxaa la tilmaamay in ay qayb weyn ka yihiin dadka shacabka ah oo ka qaybgalkooda uu aad u sarreeyo. መንግስት ወጣ በቃ ህዝቡ በጣም በቃ በራሱ ማንም ሳያዘው ማንም ሳያንቀሳቅሰው dadka haddaba shacabka ee deegaankaasi ayaa waxa ay sheegeen in ay si buuxda uga qayb qaadanayaan dhismaha wadooyinkani iyadoo aanay jirin cid ku qasbaysa maadaama ay baahi xooggan u qabaan. dawladda iyo shacabka oo iskaashanaya ayaa degmada Gawaata ee ku taalla gobolkaasi Kaafa waxa ay ka hirgelinayaan ilaa 10 wado oo isku xiraya dhulka miyiga ah ee gobolka Kaafa. gudoomiyaha degmadaasi ayaa waxa uu tilmaamay in mashaariicaha wadooyinkani ee halkaasi ka socda ay ku dhiseen ka qaybgalka dadweynaha. ጥገና ስራዎችን በህብረተሰብ ተሳትፎ እየሰራን ያለንበት ሁኔታ አለና geestiisana Balay Tasama oo ah ku-xigeenka degmadaasi ayaa sheegay in miisaaniyadda degmada ee sanadkani ay xoogga ku saareen wax ka qabashada kaabayaasha horumarka ee deegaankaasi. ሰፊ ስራዎች በህብረተሰብ ተሳትፎ ነው በአብዛኛው ስራው የሚሰራ። ኢኮኖሚካሊ ደግሞ ዘንድሮ ያለው ነባራዊ ይታወቃል። መንግስት በጀት ኢኮኖሚካሊ በጣም ችግር አለበት። ደሞዝ መክፈል የማንችልበት ደረጃ ላይ ያለነውና kaasi oo uu sheegay in bulshadu ay baahi aad u weyn u qabto. gobolka Kaafa ayaa ah mid hodan ku ah bunka isla markaana qayb weyn ka ah horumarka dhaqaalaha ee dalka, balse gobolkan waxaa ka muuqata baahi xooggan oo dhinaca jidadka ah. wahagaag daawadayaal haatanna qodobka ugu dambeeya xilintabinteena wareed oo idinka hayno dhinaca iyo dalka dibadiisa. dowladda Mareykanka ayaa hay'adda qaramada midoobay ka codsatay in cunaqabatayn dhinaca hubka ah lagu soo rogo wadanka Myanmar. Ambassador Linda Thomas oo ah wakiilka u fadhiya qaramada midoobay wadanka Mareykanka ayaa ka codsatay in cunaqabataynta dhinaca hubka ah lagu soo rogo wadanka Myanmar. sidoo kale Linda Thomas ayaa soo jeedisay in saldhigyada military ee ciidanka iyo sidoo kale shirkadaha kala duwan loo baahan yahay in cunaqabatayn la saaro cidda ka faa'iideysatay maadaama uu wadankaasi ka jiro qalalaase. inkastoo golaha ammaanka ee qaramada midoobay uu aqbalay codsigani ka soo yeedhay wadanka Mareykanka, haddana waxaa si weyn uga soo horjeestay wadanka Ruushka. warkan waxaanu ka soo xiganay Ariranka. wahagaag daawadayaal intaas ayaanu ku soo afmeeraynaa intaanan hawada ka bixinaadin dib idin xasuusiyo qodobadii warka ugu doorka Rona. aqoon-yahanka kala duwan ee dalkan Itoobiya ayaa ku baaqay in laga hortago saameynta khaldan ee ku aadan hor istaagi karta in la dhammaystiro dhismaha biyo xidheenka webiga Abbay.
laamiga ah ee isku xidha Jigjiga Galaalshe Dhagaxmadow iyo Sagag ayaa la sheegay in lagu soo gabagabeynayo muddadii loogu talagalay muddo ka yar. daawadayaal guud ahaanba waxaanu intaasi ku soo gabagabeynaynaa warkii laanta afka Soomaaliga ee telefishinka qaranka ee xilli tabinteena wareedaan idinku talagalay. warka waxa idinla socodsiinayay anigoo ah Xamdi Maxamuud. intaaynu dib hawada ugu kulmi doono waxaan dhankayga idinkaga tegayaa nabadgelyo.